waan daawaday khudbada ra'iisul wasaaraha runaantii waxa waaye waan soo dhaweynaa anaga ka shacab ahaan leer ahaan waa qodob muhiim ah oo yacni runaantii qof kasta oo Soomaali ah oo sugayay in laga dhawaajiyo sharcina ah dal kasta inuu ilaaliyo xilliga doorashada ay dhacayso iyo mandate group kasta ay haystaan in la ilaaliyo muhiimad ay tahay waan sugaynay hadalka ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre oo soo jeediyay waa mid yacni munaasab ah أنا أمسنا هاي إن يدعي كرد دورشة وقت هذا كان إن كستول وجرا حل أذق يعني ذلك حارذك كردون وجرا كورونا فيروسي وعيديك البدنية جيران حدنا وحنا مسنا ما دام واحد كستشرعي كوين شرعي اللي لاليو وقبصوا كرد دورشة ذلك لو حس هاري هدي وكان أقرب كيلو ترجل يسوق قاسمان وأنا مسنا هاي إن يدعي كرد دورشة أيضا ذلك كان إني أهر سيدان دورشة قفي عود وجعلان لها برسنا دام كدورشة هدرتان أي هرجلين ربان رئيس الوزراء يقولها وزير ده وسود وينايا وحنا ليه ومد لوجو فديي سببتو سياسته وإن أي أفران وضو لا ترتمي كرقف والبا وحقيس وكهلو عدكيس وكهلو وأنا أرين مهمة هدي أن لفرن عدك دور الشدة أما بوس كلا ترتمي أيوة حل كما احتني ماذا إسق قبسي وحكي لنا كرا اللي باتوين فربدان مركا أركتدي ده وحيد هاي إن أي فران كرسي أو دور الشدة حل كده يكون قبطان إن كسر عقبته إسكجران أو كورونا فيروس سامين بدن أو دقالة إيميل كستي فتح هذا إجران aragtidayda waxaan leeyahay way ku dhici kartaa doorashada waa hadii ay hesho guddi fiican oo ka shaqeeya nidaamkaas oo daacada in loo soo xulo sida hadda uu sheegay ra'iisul wasaaraha waa soo dhaweynaynaa in doorasho qof iyo cod ah inkastoo hadda aan la gaari karin nidaamka doorashada hadda xilligan waa soo dhaweynaynaa ay qaban qaabinayaan ra'iisul wasaaraha waxaan dhihi karaa waa mid dhici karta aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa sababtoo ah in muddo ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo xisbiyada iyo dhammaan wax garadka Soomaaliyeed ay ku dhul sugayeen xukuumadda Soomaaliya in ay ku dhawaaqdo xilliga doorashada aad iyo aad baan walaac uga qabnaa dibadhici awal maalmahan lagu haminayay oo aan ka maqlaynay shaki weyn oo xukuumadda laga qabay laakiin maanta ay dadkii shacabkii Soomaaliyeed uu shakaadka ka baxay markii ra'iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacayso aad baan u soo dhaweynaynaa arrintaas ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa way shaqaysay si fiican bay u shaqaysay wax badan oo u dhiman yihiin caqabadaha hor yaalla ay soo buuxiyaan oo aan la dhihin waxaa hadda laga yaabaa hadalka uu wasaaraha uu yidhi waqtigeedii baan ku qabanaynaa inay dad badan oo mataqaanaa dawladda target saarahayay inay muddo kordhisi ay samayso ka ilaalinayay inay dhiirigeliso hadalka ra'iisul wasaaraha waxaad moodaa waqtigiisa inuu ku soo beegmay waana waqtigii loogu talagalay in ra'iisul wasaaraha waqtigan ka sugeynay jawaab waafi ah inuu ka bixiyay xilliga doorashada inay dhacayso waqtigeeda aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa in uu yiraahdo ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa ay tiraahdo waqtigaas ayaan ku qabanaynaa oo isla waqtigii doorashada ah golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dhan ay isku waafaqaan oo hadalkaas uu yahay hadal la isku wada waafaqsan yahay xilligeeda way ku dhacaysaa waana biyo kama dhibcaan in xilligeeda ay ku dhacdo dhammaan xilli doorashada waa waqtigeeda ay mar walba ku qabsoomi jirtay 4 sano kadib haddii dawladda aysan cillado kale iyo waxyaalo kale aysan haysanin in dib loo dhigo ma qaba aniga ballantu waa qaali dadka shacabkaana mas'uuliyiin ay ka yihiin dawladda nabad iyo nolol tiimka hadda haysto meel fiican ay gaarsiiyeen in maaragtay xagga tayanta ciidanka iyo xagga arrimaha dhaqanka dhinac walba waa ka guuleysteen haddii doorasho qof cod ay noqoto Soomaa aniga kulley fikir ahaantayda xilli hadda maaragtay oo gobolada laga soo coday karo ama tuulooyinka laga soo coday karo waa in ay dawladda ay samaysaa abni in la helaa waa abni haddii oo qof oo ka yimaada matalan tuulo kale ku imaan karaa waayo tuulihiis ma ku noqon karaa waa marka ama nabadoonka ama ergadii ka timaada u taagan qof iyo cod marka waxaan ka rajaynaynaa dawladda in ay gaarsiiso amniga xasiloonta dalka Soomaaliya